Uber waa shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka California. Shirkadani waxa ay ka shaqeysaa in ka badan 449 magaalo oo ku kala yaala 66 dowladood. Waxaa lagu qiyaasaa macaamiisheeda bilaha ah in ka badan 78 milyan oo ku kala nool daafaha dunida. Waxaa laga yaabaa in badankeena aanay nagu cusbayn shirkadani, balse aynaan garanayn taariikhda la yaabka leh ee ay ku aasaasantay shirkadani. Muuqaalkani waxaynu ku eegi doonaa taariikhda aasaasitaanka shirkadani. maamaha carbeed ayaa tidhaahdaa alxaajatu umul ikhtirac, baahidu waa hooyada wax soo saarka. Fikradda aasaasidda shirkadani waxa ay ka timi kadib markii Cam oo ahaa mid ka mid ah aasaasayaasha shirkadani iyo asxaabtiisu ay kireysteen taksi gaar ah, waxaana kaga baxay lacag gaadhaysa $800 Mareykanka ah. waxaana uu Cam isku dayay inuu helo waddo uu ku yarayn karo kharashka faraha badan. waxaa ku soo dhacday fikradda ah in dadku wadaagaan ama ay wada bixiyaan kharashka ay taksiga ku raaceen, taas oo uu qof waliba awoodi karo. Tusaale ahaan, waxaynu hore u soo sheegnay in Cam iyo asxaabtiisu ay ku kireystaan taksi $800 Mareykanka ah. Sida caadiga ahna waxaa lacagtaasi bixinaya hal qof oo ka mid ah. Haddaba fikraddani waxa ay liddi ku ahayd caadi ahaanshaha inuu qof kaliya bixiyo cadadka intaas leeg. Taa beddelkeedana ay dhammaan Cam iyo asxaabtiisu qaybsadaan kharashka si qof kasta uu awoodo. Fikraddaasina waxa ay isku beddeshay shirkadda Uber, waxaana fikraddani soo dhaweeyay saaxiibkii Kalanick. May 2010 waxa ay bilaabeen tijaabadii u horreysay ee Uber, waxaana ay si rasmi ah adeegyada Uber uga bilaabmeen San Francisco 2011. Ryan Travis waxa uu ahaa darawalkii ugu horreeyay ee ka shaqo bilaaba shirkaddani. wax yar kadibna waxa uu noqday maareeyaha guud ee shirkadda. Hadda waxaa lagu tiriyaa shirkadda tagaasida ee ugu weyn adduunka.